السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد الجنال كنا سرماني داود المات وحن كهذه الدونا أنسي تحنا أهنا وهذه الدونا موضوع عاد مهم كاسو عيلك حقيقة عيلك وعذر مركي علماء عافماتك وحيسكرها عن إن عيلك وياها عذر محايا لي هدي عيلين تهاي مرة البحات هلس وجرتا إن عذر بدنا يكون عن سيدا عذر هذا ودناها كودعة diabetiska iyo hypertensionka ama blood BBB waxay dhahaan blood pressure dhiig karka Soomaalidu waxay u taqaan sallu ala rasulillah sallu ala rasulillah ala nabi sallu daawadayaal barnaamijkan oo taxano noqon doona insha Allah waxaan ku faaqidi doonaa cayilka iyo sida la isaga rido runtii aad iyo aad ay u fududahay inaad cayilka iska rido oo aad qof caadi normal ku soo laabato maxaa cayilka calaamad u ah waxa cayilka calaamad u ah inaad xeer badan jirkaaga ku aragto adiga dhan aad noqoto qof aad weyn cayilan buuran oo kala macnaha yaani inaad weyn noqoto sida sawirkan kaaga muuqata maxaa sababa cayilka waxa sababa laba shay mid koowaad inaad activity badan aan sameeyay almeeto jimicsi iyo wixii lamida ama socod xataa ugu yaraan aadan sameeynin oo qof iska fadhi aad noqoto oo hadii xataa aad shaqeynayso ay noqoto shaqadaada inaad baabuurka iridi ka raacdo xafiiska aad tagto haddana xafiiska aad ka soo raacdo baabuurka kadibna iridaada kugu dajiyo kadib aad guriga isaga xarato xaafadda markaad joogtidna kaliya taleefankaaga iyo waxaad ku mashquulsan tahay dhalada tan labaad waa cuntada waxaad qaadanaysaa cunto badan jirkaagana macnaha activity badan ma sameeynayo wax badan aad cunaysaa wax badan oo socod ama activity oo almeetaan ma sameynaysid taas waxay ku keeni kartaa marka inaad aad u cayisho oo aad noqoto qof buuran maxaa yeelay wax badan cuntay wixii aad cuntayna ma guubin macnaha marka adaa la rabaa inaad activity sameyso dhaqdhaqaaq sameyso runtii cayilka wuxuu noqday wax aad loola dagaalaa waxaad arkaysaa qofka inuusan wax badan cunaynin inuu activity sameynayo subaxii ama galbihi oo kale ama habeenkii inuu almeeto sameynayo ama banooni ciyaarayo ama markuu shaqada aadayo uu soconayo haddii aad dhahdo baabuurna israacayna ama wuxuu ku leeyahay maya ma ka soo laaban kartaa cayilka waa ka soo laaban kartaa hadda aniga aan jeedo waxaan ahaa 2016kii ama 2016kii waxaan ahaa qof xoogaha yar cayilan wax yar laakiin aniga waxay ilahayd wax weyn in aad u cayila ilahayd waxaan noqday 87 kilo xaqiiqatan 2 bilood gudahooda ay u qaadatay inaan 74 kiilo aan noqdo marka cayilka waa la iska yareyn karaa waa aad ay u fududahay inaad cayilka la dagaasho oo jirkaaga hilib badan ama faad badan xeer badan aad ka rido aad ay u fududahay laakiin waxay u baahan tahay go'aan adag oo aad adiga qaadato waxaan iska riday ku dhawaad 12 kiilo waxaan sameeyay laba shay mid koowaad cuntada aan qaato ayaan xadiday waxaan qaadan jiray 2 waqti ama hal waqti oo full ah tan labaad waxaan sameyn jiray almeeto ama socod waliba socodka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay inaad aad u socoto socod badan aan sameyn jiray maalintii 30 daqiiqo ayaan socon jiray taas labada shay ay iga caawiyay inaan 12 kiilo aan jirkayga ka rido waayahay insha Allah marka mawduuceena xiga waxaan uga hadli doonaa sidee cayilka la isaga ridaa waxaa jiraan qaabab badan oo cayilka la isaga rido aad bay u badan yihiin isbuuc walba waxaan soo qaadan doonaa hal shay ama hal qaab oo aad cayilka isaga ridi karto waxaa jiraan dad noloshii ka dhacay liajli inay yihiin dad cayilan ma aha inaad facaga kaga harto waa cayilanahay dadku isku dhiban yihiin qofna wuxuu raadinayaa cayilkii qofna wuxuu dhib ku qabaa cayilkaba cayilka xaqiiqatan wuxuu ku ciyaarayaa labiskaaga qaabka adiga macnaha tahay waxa laga yaabaa inaad isku aragto qof aan style lahayn marka inaad cayilka iska rido waa ku muhiim insha Allah waxaan kugu baraarujinayaa inaad video soo socdo aad daawato si aad wax badan ugu bedesho xeerta jirkaaga saaran oo aad u noqoto qof fit ah oo meel walba ka boodi kara aan isla socono aad u maasantii qaybta dambe waxaan ogaanay insha Allah assalamu alaykum sallu ala rasulillah sallu